وان سلام ورايا وان سو دوينيا aad iyo aad magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Ducaale maanta waxaan fursad u helay marka aynu ku wada barano cashar yar oo ku saabsan taxanaha ugu magac darnay ereyga Ilaahay ee murtida Soomaalida waxaynu soo aragnay ama soo baranay dhowr maalmood oo ay ka mid yihiin aqoon la'aan waaftiin la'aan nin faasho oo rees nugtay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan iyo kuwa kale waxaynu eegnay sida ay maamaayada Soomaalida ama murtida Soomaalida u qaabilsan tahay ama aan u burinayn ereyga Ilaahay iyo in kale maanta waxaynu baranaynaa maamaha kale oo Soomaaliyeed oo aynu qaabilsiinaynaa ereyga Ilaahay eegaynaa inay ereyga Ilaahay qaabilsan tahay waayo waxa muhiim ah in fikirkeena iyo dhaqankeena iyo maamaahideenu ay ku saleysnaadaan ereyga Ilaahay injiilka haddii kale waxay noqonaysaa inaynu aynu dhaqankeena iyo hab dhaqankeena uu ku saleysnaado khalad taas oo aynu inaguna isku samayno binaadamka kalena ku samayno waana abuuris baa ka horeysay ayaynu maanta baranaynaa maamaada ay Soomaalidu jiraan waxaynu ognahay maamaayadu inay leeyihiin macno qoto dheer oo kasii qoto dheer ereyada ay sheegayaan ee tooska haddii maamaadan toos loo turjumo oo la yiraahdo waana abuuris baa ka horeysay waa run qofka bini'aadamka inta la waanin uu la abuuray marka ka bacdi markii la abuuray baa wax la baray la barbaariyay la waaniyay iyo wixii lamida haddii aynu intaa ku ekayno maamaha ma noqonayso maamaadu waa inay ereyada ka qoto dheeraata waxay noqonaysaa haddii aynu naan waana abuuris baa ka horeysay waa run waxay noqonaysaa fact ama xaqiiqo ama waxay noqonaysaa oraah qof kasta uu garanayo waa yes waana abuuris baa ka horeysay laakiin waa inaynu isweydiino waa maxay macnaha qotada dheer ee dahaaran ee ay maamaadani leedahay maamaadan waana abuuris baa ka horeysay waxaa loogu mahmahaa qofka marka marar badan lala taliyo ee ay dadku waaniyaan noloshiisii u bedeli waaya sida ay marka dadka la talinaya u arkaan inay dantiisa tahay ama ay u arkaan inay dantooda tahay waayo marar badan qofku wuxuu dantiisa u arko ama wanaagiisa u arko ayaa dadka kale sida ay u arkaan ma aha marka walaalayaal maamaadan waxay tusaysaa in qofka loogu maamaahay uu yahay qof laga quustay oo aan rajo lahayn qofkaas oo khalad ku jira kaas oo uu khaladka uu ku jiro ama dhibaatada uu ku jiro ama waxyaalaha ay Soomaalidu ku eedeynayaan ay yihiin waxyaalo uu Ilaahay u qoray oo uu sidaa ugu talagalay kaas oo si kastoo loo waaniyo si kastoo wax loogu sheego aan haba yaraatee isbedel lahayn si kasta oo aan markaa aan hadal dambe la iskaga khasaarin waana dambe la iskaga khasaarin waxtar dambe la iskaga khasaarin waayo Ilaahay baa saa u qoray marka hadalkiisi qofka waxa lagu soo gaabiyay waana abuuris baa ka horeysay saa waa loo fiiriyaa waana abuuris baa ka horeysay naga daaya walaalayaal mahmaha kale oo Soomaalidu ku maamaado waxay oranaysaa Soomaalidu been way sheegtaa laakiin been ma maamaadan maanta aan idin sheegaya ee aynu baranaynaa waana abuuris baa ka horeysay waxay tusaysaa in Soomaalidu been sheegto beenna maamaado run ahaantii waana abuuris baa ka horeysay waxay toos uga hormarinaysaa ereyga Ilaahay injiilka kaasoo ina baraya inuu Ilaahay uusan weligii qofna ka quusan laakiinse uu qof kasta Ilaahay agtiisa rajo ka leeyahay inuu Ilaahay qof kasta agtiisa jacayl uu u hayo inuu Ilaahay agtiisa qof kasta doonayo inuu lahaado nolol weligeeda ama janno inuu Ilaahay doonayo qof kasta agtiisa inuu nolosha adduunkana ku lahaado nolol fiican oo wanaagsan qofka bini'aadamka ah Ilaahay isaga oo la kaashanaya wuxuu awood u leeyahay oo karti u leeyahay inuu isbedelo oo uu khasaare kasta oo soo maro ama khalad kasta oo soo maro ama dambi kasta oo uu ku dhaco qofku inuu ka soo kabto oo uu sameeyo bilow cusub masiixiintu waxay aaminsan yihiin inuu Ilaahay ka saamixi karo dambi kasta gasho Ilaahay agtiisa ma jiro waa mawduuc kale dambi yar iyo dambi weyn waa u dambi
marka ilaahay agtiisa dembi kasta aad gasho khalad kasta aad ku dhacdo ilaahay uu kaa soo kabi karaa masiixiintu ma aaminsana in ilaahay dadka intuu dembiga geed u sura marka dambe qoorta uu geliya ma aaminsana haddii aad la timaadid qalbi khushuuc leh oo toobadkeen leh ilaahay dembi kasta uu kaa saamaxaya ereyga ilaahay bibleka waxaa ka buuxa qisooyin iyo tusaalayaal dad noloshoodu ay u muuqatay mid laga quustay oo aan rajo lahayn laakiinse uu ilaahay bedelay kuwaasoo noloshoodii ka dhigay mid macno leh mid faa'iido leh mid ilaahay raalli ka yahay oo uu xataa ilaahay isticmaalay oo uu isticmaalay qasdigiisa ciise masiix tusaalayaal badan buu nagu siiyey laakiin tusaale kamid a waxaa weeye masaalka ama qiso tusaaleedka uu ciise masiix inoogu sheegay injiilka sida uu luuku soo qoray cutubka 15 aayadaha 11 ilaa 32 halkaas oo aad ka akhrisan kartaan oo ciwaankiisu yahay wiilkii aan aaminka ahayn walaalayaal soomaalidu waxay leedahay dhaqan qofka niyadda ka dila ayay leedahay qofkii ay in ku arkaan ama noloshu ayaamo ka xumaato waxa weeye waxay ku sameeyaan way sii fashiliyaan way ku oriyaan waxaad maqlaysaa naanaysa ay ka mid yihiin ilay maxaa la yidhahdaa cheese gacanlow maxaa la yidhahdaa laangare oo ay ugu magac darayaan dadyowga jirka iyo inta jirkaa leh ama jirkoodu yaro kala dhiman yahay taas oo dhaqamada kale anigu intaan arkay ka ah ceeb in qof wax uu ku leeyahay jirkiisa in loogu yeero ama lagu naanayso ama lagu yaso qofku haddii ay niyaddu ka xumaato ayaama oo uu fekero soomaalidu waxa weeye way ku sii daraan oo way ku oriyaan oo way xantaan qofkaasna aakhirka wuu sii waashaa ayaamaha waxay keeneen soomaalidu wax la yidhahdo dhaqan celis dhalinyaro qurbaha ku kortay oo iska caadiya oo very intelligent ah oo ay iyagu waaleen waalidkood siday marba waddan ugu rareeyeen oo ay odhanayeen kanaa cayr badan laga helaa ya waddamo kale luuqado duwan ay markii dambe noloshoodii ka xumaatay asaagood ay ka reebeen ayay waxay keeneen inay ugu yeedhaan dhaqan celis walaal ereyga ilaahay agtiisa maamaada la yidhaahdo waana abuuris baa ka horreysay kama shaqaynayso waxay liddi ku tahay ereyga ilaahay ee injiilka ilaahay agtiisa waxaad mar kasta ka leedahay rajo if iyo aakhiraba si kasta oo hore khalad kaaga dhaco ama aada u dambaabtay ama uu khasaare kuu soo gaadhay waxa weeye ilaahay agtiisa waxaad leedahay rajo soo kabasho iyo dembi dhaaf wuxuu ilaahay noogu bishaareynayaa sidan ereygiisa ku qoran kitaabkii nebi yeremiya cutubka 29 aayadda 11 wuxuu ilaahay ku odhanayaa ilaahay wuxuu leeyahay anigu waxaan garanayaa fikrada aan idinkaga fekero waana fikra nabadeed ee maaha kuwa masiibo si aan ugu dambaystiina rajo idin siiyo ilaahay agtiisa mar kasta rajo iyo wanaag baa walaalayaal inoo yaalla haddii aynu isaga isku xidhno oo aynan dhegaysan dadka uu shaydaanku isticmaalayo ee ina eedeynaya ciise masiix oo ah meesha ugu dambaysa ama ka ugu dambaysa ee dambeeya uu ilaahay rajadiisa jacaylkiisa iyo dembi dhaafkiisa inagu tusay ee inagula heshiiyey wuxuu xertiisii ku yidhi sababta aan u imid waxa weeye inay nolosha haystaan oo ay badnaan u haystaan sida ku qoran injiilka sida uu Yooxana u qoray cutubka 10 aayadda 10 nolol buuxda oo maaha noloshu maaha cun iyo cab iyo taajirnimo keliya laakiin nolol uu ilaahay raalli ka yahay walaalayaal kuwa ciise masiix rumeeyay ereyga ilaahay waxaa ku qoran kitaabka korintuska 2 cutubka 5 aayadda 17 qof haddii uu masiixa ku jiro ama uu rumeeyo kaasi waa abuur cusub oo waxyaalihii hore way dhammaadeen bal eeg wax waliba way cusboonaadeen qofka masiixu markuu noqdo abuur cusub buu noqdaa weligaa geed yaro soo baxaya ma aragti ya oo aan iin lahayn ama cunug yaroo dhashay ya waxaad noqonaysaa cunugga ilaahay oo ilaahay wuxuu kaa horeynayaa waxyaalihii shaydaankii iyo dadkii uu isticmaalayay ee niyadda kaa dilayay dabcan bini aadan baynu nahay walaalayaal oo kan shar kale ama shaydaanku markasta wuxuu kuwa ilaah uu doortay weerar gaara ayuu ku hayaa weerarkaas oo aynu inagu nafteenna iskaga celin karin ciise masiix markuu samada tegayay xertiisii wuxuu u sheegay
ama ugu ballan qaaday inuusan agoonnimo kaga tegin laakiin inuu ilaahay usoo diri doono gargaare ruuxa quduuska ruuxa ilaahay laftiisa ayaa noloshooda ku dhex noolaan doona kaas oo noloshooda fahansiin doona inay ereyga ilaahay fahmaan inay ilaahay doonistiisa fahmaan inay adeecaan oo ku dhaqmaan oo iyaga rajo sii doona oo noloshooda ka muujin doona midhaha ruuxa quduuska ama dabeecadaha uu ilaahay raaliga ka yahay sida ereyga ilaahay ku qoran Galaatiya cutubka 5 aayadda 22 midhaha ruuxa quduuska waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminimo qabownimo iscelin waxa caynkaasa sharci digiisii ma jiro waxa kaliya waxyaalaha ka soo horjeedsan doona ka soo horjeedsan kara waa shaydaanka iyo kuwa u adeega ugu dambaysta walaalayaal yaan lagaa dhaadhicin marna maamada Soomaalida waana abuuris baad ku horeysay iyagoo oo adiga lagaa dhigayo inaad tahay mid rajo aan lahayn mid uu ilaahay ugu talagalay ama u qoray in noloshiisa oo dhan ay xumaan iyo dembi iyo failure iyo rajo la'aan ku jirto xusuuso bishaaradan uu ilaahay ereygiisa kugu qoray aynu ka soo akhrinay hadda ereyga ilaahay taas adoo niyadda ku haya noloshaada habayso oo ilaahay isku xidhaya adiga oo aan fiirinaya wixii hore wax kastaba ha ahaadeen laakiinse fiirinaya ama eegaya rajada iyo mustaqbal wanaagsan ee cusub uu ilaahay ku hayo haddaynu mar kale eegno kitaabka nebi Yeremiya cutubka 29 aayadda 11 waxay leedahay rabbigu wuxuu leeyahay anigu waxaan garanayaa fikirrada aan kaaga fikiro waana fikirro nabadeed ma aha kuwa masiibo si aan ugu dambaystaada rajo kuu siiyo waad mahadsantihiin ilaahayna ha idin barkeeyo